gudoomiyaha aqalka sare iyo mas'uuliyiin ka tirsan safaarada Djibouti ee Soomaaliya ayaa waxay magaalada Muqdisho kaga qayb galeen munaasabad lagu bogaadinayo madaxweynaha dalka Djibouti wax qabadkiisa sida warkan inoogu faahfaahinaysa Rooda Cabdi Xasan. kulankan loogu magac daray xasuusinta shirka carti ee xal u helidii Ismaaciil Cumar Geyle ayaa ujeedkiisu ahaa mahadcelin madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geyle oo kaalin mug la ka qaatay qabashada shirka carto ay soo qabaqaabiyeen golaha abwaanada Soomaaliyeed Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Akademiga Goboleedka Cilmiga iyo Suugaanta ayaduna ay ka soo qayb galeen kusimaha safiirka Djibouti gudoomiyaha aqalka sare abwaanada bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn abwaanada Soomaaliyeed ayaa gabayo tilteela halkaas ku gudmaray oo ugu tala galeen si ay ugu mahadceliyaan dalka dariska inuu nahay ee Djibouti hoyaalay hoyaalayay hoyaalayay hooye oo hobaalayay hobaalayay hoobe war hoyaala hobaalayay hoyaalayay hoobe hadan doono gabay iyo oraa ama sageera roo jamaalo wixii ila gudboon yangolo ka sheega ee garadada waxa la igu xiray gaban ahaantii iyo maantu garaadii kordho muraadkan ka leeyahay taxdana weydin maqashiin xafladan muhiimada lahaa meesha loo yimid ay martiduna ka soo qayb gashay madaxa suunaaday macnaheedu waxa ay ragaa meesha ka hadlaan haddii aan munaasabad tagaa maaska tirinaayo waa maalmahay ugu mudneed madal inaan joogo bulshada umataya waan macallin waayana waxaase meel ka soo baxay oo kaalintooda buuxiyey bulshada reer Djibouti iyo baxsan oo Ismaaciil barigi cartaan dhigay shirka baaxadiisa loo maxmiyad laga baxsaday abwaanada gabdhoodan baaxada ugu qoran buugalna waa ka qaadin xusuus aan baahin iyo gacaltooyo fara badan baan bedelka iyo laabta iyo beerka ugu haynaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay oo soo dhaweeyay bulshada gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed Xeeso Dhuux Maxamed markale ayaan idinku salaamayaa magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed waan idinku soo dhaweynayaa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta nagala qayb qaadataan xafladan aan ugu magac darnay xusuustii shirkii carta iyo xal helidii Ismaaciil Cumar Geyle abaalkii ma gudi karnee abwaanadu geesiyow amaan bay ku huwiyeen farintuna waa intaas abaalkii ma gudi karne abwaanadu geesiyow amaan bay ku huwiyeen waxaan rabaa inaan intaa raaciyo madaxda sharafta la soo dhawaada sidoo kale waxaa si wada jir ah uga hadlay labada gudoomiye Akademiyaha Cilmiga Fanka iyo Suugaanta iyo gudoomiyaha Akademiyada Goboleedka ayagoona halkaas hambalyo ballaaran u jeediyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle aan marka waxaan oranayaa markaan Djibouti iyo kaalinteedii iyo Ismaaciil Cumar Geyle aan eego waxaan is iraahdaa tolo amaantan mid ka badan bay u qalmaan haddana waxaan iraahdaa laa shukra cala alwaajib yani waxaan waa wax lagu lahaa waxaan ka badanba annagu intaa ka badan waan u samayn lahay waxa kale oo ku farxaa marmar baan waxaan iraahdaa shantii Soomaaliya hadday mid noqon lahayd Soomaali weyn baad maanta haysan lahayd marka hore uu xasuusiyay in ay ummadda yani muxuu ahaa kaalin weyn ay uga jiraan oo cid kale uga jirta ay jirin oo lama ilaawaan ah maantana ka ciyaari karaan muxuu ahaa kaalintaasi mid lamid iyo bariba sidaa darteedna ay mudan yihiin muxuu ahaa in lagu baraarugo in la gacan qabto oo la taageero oo la taakuleeyo kusimaha safiirka Djibouti oo ballan qaaday inuu gudbin doono isku duubnida Soomaaliya aniga ayuu soo xil saaray marka waa maasantiin farintiina waan gudbinaynaa Djibouti waan geenaynaa anoo safarada ahaan farintiina waan gudbinaynaa si dadka Soomaaliyeed ay ugu hanweeyeen madaxweyne Ismaaciil wanitaadii ka turjumaysada wax maaragtay qarsoon maaha ugu dambeyn waxaa soo xiray kulankan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo qodobo muhiim ah taabtay marka ugu horeysa Ismaaciil Cumar Geyle iyo dadka reer Djibouti iyo dawladoodaba waa u mahad celinaynaa hal eray baan oranayaa fanaaniinteena ama dawla ha noqoto
ama dadka waxaysaa noqdaan inay taageeraan oo la kobciyo oo la awoodeeyo weeye si dalkan ay u jaheeyaan. Rooda Cabdi Xasan, Soomaali News TV, magaalada Muqdisho.